بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عشر كان واقبتي كواد برشد همزة الوصل أما همزة اسكو حركة waxaana ku sharixi doonaa cashirkan waxa ay tahay hamzada isku xirka. Hamzatul wasli waa alif uu korkiisa saaran yahay calaamad u eg xarafka saad. Calaamadan u eg xarafka saadka ah waxay ka timaaday kelimada ah silah. Kelimada silah macnaheeda waxa waayay sii waditaan ama isku xiris, oo hamzadan waxay isku xirtaa xarafka ka horeeya iyo xarafka ka dambeeya sida aan waxyar kadib baran doono. Si lagu kaso hamzadan inay isku xirayso labada xaraf ay u dhaxayso ayaa waxaa la kor saaray calaamad u eg xarafka saadka. Calaamadanna waxaa laga soo qaatay kelimada silah, kelimadaas oo uu ugu horeeyo xaraf saad. Hamzatul wasli micnaheeda af Soomaali waa hamzada isku xirka sida aan cashirka bilowgiisa qoraalkeeda ku soo aragnay. Haddaba maxay tahay shaqada hamzada isku xirka ama isku xirta? Shaqadeeda waxay tahay inay isku reebto labada xaraf ay dhexda ugu jirto, xarafka ka horeeya iyo xarafka ka dambeeya. Tusaale ahaan, kelimadan haddadan meesha inoo taasha waxay ka koobantaa 5 xaraf sida hadda ay u qoran tahay. Xaraf ka mid ah waa hamzatul wasli ama hamzada isku xirka. Xarafka ugu horeeya haddaan fiirino wuxuu yahay waaw kordhigan. Waxaa ku xigta hamzada isku xirka. Waxaa ku sii xiga qaaf reeban. Hamzada hadda waxay dhexda ugu jirtaa oo ay u dhaxaysaa xarafka waaw iyo qaaf. Shaqadeeda waxa waaye marka in iyada ay ku tusiso inaad isku reebtid waawga iyo qaafka. Reebniinkii caadigi ahay ee aad ku soo baratay kitaabka labaad, reebniinkaasoo kale isku reebay labadan xaraf. Maxay noqonayaan marka? Waxay noqonayaan sida hadda ku soo baxday qoraalka ah oo ah waaw kordhigan qaaf reeban. Hamzatul wasligii waa la qoraa ee lama akhriyo. Haddaba aan hingaadino marka labada kelmadood. Waaw kordhigan qaaf reeban waqo. Saad hoos dhigan daal reeban side. Waqo side. Labadaba haddaan rabno inaan akhrino waa isku dhawaaqi, laakiin qoraalka way kala duwan yihiin. Sida hamzatul wasliga tusaalaha uu la socda ah, tusaalahaasa quraanka lagu qoraa. Kan kale oo aan ka bixinay hamzatul wasliga waa sharaxaad in la fahmo aan ugu talagalay bas. Aan qaadano tusaale kale. Kelmadana noo soo baxday oo ka kooban 2 kelmadood la isku xiray. Haya xarafka ugu horeeya waa hamza hoos dhigan, daal hoos dhigana ku xigo, kadib waxaa imaaday hamzada isku xirka ama hamzatul wasl. Kadib waxaa imaaday nuun reeban. Waxaa ogaataa marka hamzatul wasli mar walba gadaasheeda waxaa imaada waa inuu reebnaadaa reebniinkan oo kale ama reebniin shadda ah. Hadda waxaan sameynaynaa daalka iyo nuunkan isku xiraynaa oo maxaan dhahnay labada xaraf ay u dhaxaysa isku reebe. Waan isku reebeynaa marka hamza hoos dhigan i, daal hoos dhigan nuun reeban din. Toos waxaan u akhrinaynaa xarafka la reebayo oo lagu xiraayo. Hamzatul wasliga ma hingaadinayno. Baa kordhigan ba
idinba cayn kordhigan ca idinbaca thaa kordhigan tha idinbacatha aan isku soo koobno marka hadda waxa hamsatul wasli shaqadeeda ay tahay waxay isku xirtaa labada xaraf ay dhexda u gasho xaraf wuu ka horeeyaa xarafna wuu ka dambeeyaa labadoodii reebniinkii caadiga ahay ee aad ka saysay isku reebe wax kale oo ay dhib leedahay ma leh saasay u fududahay aan akhrino marka 3 tusaale oo kitaabka ku yaalo faa kordhigan siin reeban fas laam goodan kaaf reeban luk fas luk faa hoos dhigan yaa reeban fii fas luk fii haa kordhigan alif reeban haa fas luk fiihaa waaw kordhigan wa laam kordhigan la wala waaw hoos dhigan jiim reeban wije wala wije taa kordhigan ta wala wije ta miim kordhigan ma wala wije tama cayn goodan waaw reeban cuu wala wije tamacuu laam kordhigan la wala wije tamacuu la haa goodan waaw gaaban huu wala wije tamacuu lahu waaw kordhigan cayn reeban wac baa goodan bu wac bu daal goodan waaw reeban duu wac buduu raa kordhigan baa shaddah rab wac buduu rab baa kordhigan ba wac buduu rabba kaaf goodan miim reeban kum واعبدوا ربكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.